sida caadiga ah dadka badankooda waxa aad ugu adag inay saamaxaan khaladaad iyaga ka dhacay iyo sidoo kale kuwa iyaga lagu sameeyay. Dadka qaar waxay habeenno badan u hurdo seegaan khaladaadka noloshooda saameynta ku yeesha. Haddaba barnaamijkeena maanta waxaan ku soo qaadan doonaa muhiimadda cafiska. Ugu horeyn, aynu qeexno waa maxay cafisku. Cafisku waa inaad ka tanaasusho khaladaad ka dhacay oo ka yimid naftaada ama dadka kugu xeeran. waa inaad ka tanaasusho dareen kugu abuuray cadho, xanaaq iyo culays taban. Cafisku wuxuu noqon karaa mid ku wajahan nafteena ama mid ku wajahan cid kale. Haddaba aan ku qeexo maxaan uga jeedaa cafiska naftaada. Waxaan uga jeedaa inaad naftaada ka saamaxdo khaladaadka nafeed ee ka dhacaya, sida tusaale inaad hal maalin ka soo habsantay shaqada kadibna lagaaga eriyay habsankaas shaqadii, sida inaad imtixaan dhibco hoose keentay kadibna aad uga hadhay fasalkii aad la dhigan jirtay, iyo khaladaad kale oo kuwaas la mid ah. Haddii aad khaladaadkan yaryar naftaada ka cafin weydo, waxaa kugu adkaanaysaa inaad hore ugu socoto meeshii aad u socotay, waayo waad niyad jabaysaa. Xilliyada ay naftaada ka dhacaan khaladaadkani waa mararka aad ugu baahi badan tahay inaad cafiso naftaada si ay hore ugu sii socoto nolosha. Haddaba maxaan uga jeedaa sidoo kale cafiska dadka kale. Waxaan uga jeedaa inaad dadka kale cafiso marka ay qalad kaa galaan, iyo sidoo kale markaad adigu iyaga khalad ka gasho. Haddii aad cafiska saaxiib ka dhigato, waxa wanaagsanaanaya xidhiidhadaada, sidoo kale waxaa kor u kacaysa deganaanta naftaada. Haddaba waxaa laga yaabaa inaad isweydiinayso faa'iidooyin nooceeya ayaan ka heli karaa cafiska. Kow, haddii aad cafiska saaxiib ka dhigato, waxaa kaa yaraanaya dareemada taban ee aad la nooshahay, sida xanaaqa, canaanta iyo iscilkaambiga. Laba, waxaa wanaagsanaanaya xidhiidhka aad la leedahay dadka kale, waayo waxaa adkaanaysa inay xidhiidhadiinnu u soo gaabtaan xanaaq hal maalin idinka dhacay. Saddex, markaad naftaada ka cafiso khaladaadka ka dhaca, waxa aad awood u yeelanaysaa oo aad diyaar u noqonaysaa inaad u adkaysato khaladaadkaasi saamaynta ay noloshaada ku yeeshaan. Afar, waxaad dareemaysaa haddii aad dadka cafiso deganaanshiyo nafeed, maadaama aanay jirin cillad dhex wareegaysa naftaadu. Shan, waxaa kuu fududaanaysaa inaad hore uga bogsato dhaawacyada kaa soo gaadhay gafafka. Lix, waxaad naftaada iyo dadka kaleba u caddaynaysaa inaad awood u leedahay inaad beddesho dareemadaada xilli kastoo loo baahdo. Taasina waa awood. Haddaba haddii aynu ogaanay faa'iidooyinka ku jira cafiska, sidee ayaad naftaada ugu tababari kartaa cafiska? Ayaa laga yaabaa inaad isweydiinayso. Si aad naftaada ugu tababarto cafiska, waxaa lagaaga baahan yahay inaad tallaabooyinkan qaado. Kow, cabir dareenkaaga marka lagugu qaldamo, oo u sheeg qofka kugu qaldamay inaad cafisay oo aad raalli ka tahay. Runtii tallaabadani waxay kaa dhigaysaa qof geesi ah oo dadka kale waxaad qalbigooda ku yeelanaysaa meel muhiim ah. Laba, si aad u cafiso naftaada ama dadka kale, ee keliya waxa iminka jooga oo ha soo kicin waxyaabihii idin dhex maray xilliyo hore. Ogow, haddii aad ka sheekaysaan wixii hore idin dhex maray, keliya waxaad damqaysaan nabaradii hore. Taasina cafiskiina waxay ka dhigaysaa mid fashilma. Saddex, naftaada ku tababar inaad noqoto qof naxariis badan oo ka garaaba khaladaadka dadka kale. Ha ku adkaan go'aankaaga cafis la'aanta iyo xanaaqa ee dadka kale iska cafi oo u sheeg inaad saamaxday. Afar, u samee tallaabooyinkan si joogto ah, waayo waxaa kuu fududaanaysaa inuu cafisku ka mid noqdo nolol maalmeedkaaga. Shan, naftaada ha ku ciqaabin haddii ay cafiska hore ula qabsan weydo. Si waqti ku filan, waayo wax kasta oo wanaagsani waxay u baahan yihiin shaqo iyo waqti ku filan. Waxaan kaaga tegayaa, xanaaqu waa xanuun joogtaa, laakiin cafisku waa xanuun hal mar ah. Waxaan kuu rajaynayaa nolol wanaagsan oo qurux badan insha Allah. Nabad ahaw.